kusoo dhawaada barnaamijka ila hadal qaybtiisa saddexaad. barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay kadis iyo wareysi. waxaana ka qayb qaadanaya kadiskaas Daa'ud iyo Cali. waxaana idin soo gudbinayaa anigoo ah Bob. Daa'ud iyo Cali kusoo dhawaada. waa dhownahay kadiska waan bilaabaynaa. wareegta koowaad waxaa waaye hadaloo sorbeeble iyo googa. waxaa sheegtay macnaha ciidanka irka. horta yaa yaqaano. ciidanka cirka ha oo sarbeeb ahaan loo ha dhaho ha aniga ma aqaano weli ma aqaano adigu ma taqaana. ciidanka cirka waxaan ku qiyaasayaa inuu yahay caadka noola jeedo kale. caadka ah ha maxaa waaye caadka. caadka cirka caadka macnaha caad le waaye daruuraha. daruuraha ah maya maya sarbeeb ahaan hadduu yahay ha waxaa loola jeedaa alkoholistayaal alkuliso ha ama qamristayaal. sax haddaan ku dhaho waa dheer baxshaysan tahay ama waa dheer baxshaysan yahay. waa dheel baxjaysan of waa dheer baxshaysan yahay. waa dharbaxshaysan yahay ha waa xariifkan camal waa buuxa camal waa hadaloo sarbeeb leh marka waa sarbeebe ha waa waxaa dharbaxsan waaye yahay macnaha yani waa cabsan yahay camal ha waa sax sax waaye, sax cashira ii saaran. he cashira ii saaran canjala ii saaran maya cashir cashira ii saaran cashir canjar cashir cajir aa ii saaran. cajira ii saaran maxaa waaye macnaha yani wax fiican haysta camal may cajira ii saaran macnaha waxaa weeye waan yaabanahay beryahan. oh waa qofkaas gambar ayaan ugu fadhiyaa. maxaa waaye yani macnaha qoftaas waa gaada camal waa gaada gambira ugu fadhiya yani waxay iga hadlaysaa dhowda markay isoo noqoto yani waa gaado camal gambira ugu fadhiya waa xanaaqsan yahay. ha يعني قف كاس وادو حناق waa xanaaqsanaha صح waa dhow waa dee waa صح صح ninkaas dheegwiga haystaa haddaan ku dhaho maxaa waaye ninkaas waa mina afaaro kuwiga oo afaaro iga haya mina qof sirkateyda og waayo kale. maya haddaba ninkaas dheeg uu iga haystaa. dheegayga waa haystaa dheeg uu iga haystaa. dheega iga haystaa Ah, yani waa ugu dhagay camal may ma aqaano markaas waa nacibaha weeyaan. waa necbahay Ah. waa jiifa waa maxaa waaye waa jifaa ha macnaha mina waxaa loola jeedo ha mina qof wax ma qabsado qof oo wajifa waa hurdooya kale. taas laakiin sarbeeb baa leedahay moogtahay marka mina qof aan wax akhrisanin amba wax barto ka jiifa waa ka jiifa mana shaqeeyo. maya maya adigu ma taqaan. waa jifaa haddaa qiyaas waxay ila tahay waa lazy camal maya waxa weeyaan waa qof waan shiidsanahay ama waa shiidsanahay, busaaranahay. waxba ma haysto ha waa dhaqmooya maxaa waaye waa aroosay camal waa ishi ama runtaa kale. waa ii shidan tahay waxaa أو إيش haystaa ها 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 صح قف كان دبل كليك ده tuur qofta camal dileed camal qofkan naga saar naga gooy ماي ama naga reeb. ماي double click dheh ها delete garee camal tuur qoftaas ماي ماي وحوين قف كان إيش ii sheeg oo wax socodka diinka le dabeeshna ka orod badan ee daalin إيش bisha waay ها بيش صح عم ها ها ودايح ها بيش wax dugaaga raaco dibadana u hooydo dad la moodo sheeg. waa daanyeer. ها صح صح Daanyeer. waxaan biri goyn oo afgooyo. waxa wax aan biri goyn oo Oo afgooyo. waa hadal may waxaan birigoyn oo afgooyo. waa afgoy bisin. waa gar ها ها قرت ها صح صح. wareegta labaad Yeah.
ujeedooyinka magacyada magaalooyinka Soomaaliyeed. Su-aasha koowaad waxaa waaye ereyga Soomaali meeshuu asal ahaan kasoo jeeda. soomaaliya meesha asal ahaan kasoo jeeda magaca wuxuu ku imaaday Ha, Soomaaliya ha. ku imaaday. Haye. macnaha magac Soomaali wuxuu ku imaaday marka hore Soomaalida dhaqan waagii waxaan u lahayn qof haddii lasoo dhaweynayo oo kale eriga u Soomaal ambe sidan saxsan ku maqlay askar aad tagtay Soomaaliya markaas al dhahay ay dhaheen dad u soo hoydeen Soomaali markaas waxay ka maqleen eriga u Soomaal Haye. Soomaal macnaheedu waxaa waaye marka. ariga ha صح 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 waa saxsantahay jawaab sax caana usoo lisaan waxaad sheegtaa macnaha Djibouti. jabuuti ha macnaheeda ha way maqlaan sidoo kale wuxuu ka kooban yahay jab iyo buti. oo jab yacni haddii la isku xiro waxay noqonayaan jumlahaan magacaas wuxuu noqonayaa haddii la Ha, fasiro ha. soomaali ahaan loo fasiro ha ha jab wax yaroo buutin waxaa waaye jabuuti ma naqaano macnaha adiga ma waxa weeye jabku waa guuldaro Eh, butina waa madax kuti. okay ujeedada waa koobti ama meesha ay butidu ku jabtay buutida ku ama lagu jebiyey. sax magacaasna isu bedela Djibouti. Okay, Borame. booran boorame of booran Borame magaalada magaceeda ha ha magaalo laameel oo gobol ka tirsana booram waa magaalo moogtahay. ha marka waxaad sheegtaa macnaha بورم يعني ابل يعني بور يعني بص واي عمل دبل dabeel ah يعني بص bus ah na waxay Boorame. ugu baxday boorame waxay ugu baxda magacaasa mise kale may macnaha in Borame waa magaalo madaxda gobolka Awdal ee Somaliland si moogtahay. fiican marka magacaas in meeshuu ka soo jeeda magacaana hadii loo raaco yani may Borame ma taqaan. بورم ما aqaana laakiin okay bay Boorantuna waa bohol moogtahay. ha macnaha magacu wuxuu ka soo jeedaa ereyga Booraan oo wadartiisu tahay Booramo. okay Boorantuna waa bohol. Boorame waa Booramaley haddii aan si kale u niraahda waa meeshii booramaha badan lahayd. boor ka badan lahayd booran booran badan lahayd booran waa god. godad Erigaabo elgaabo may Erigaabo ergaabo of elgaabo Erigaabo laakiin soo fasir. ergaabo meel haddii la qodo biyo ka dhow yihiin ay ahayd intaas Elgaabo. elgaabo ha waa sax. elgaabo ujeedada magaca waxaa weeyaan meeshii gaabneed ama erigii gaabna ay biyo fadhiyeen. ha sax. Laascaanood laascaanood waa idan waxaa waa hadii la fasiro ha meel oo waxay ahayn xoolaha ku badan yihiin oo yacni waxaa meel xoolaha ku badan yihiin oo yacni caanaha la maashi iyo ugu badan yihiin ahay meelo xoolo ku badan yihiin hay Ah, masiif siri kartaana magaceed Laascaanood maya ma sii fasiri karo oo maxaad u tiri in meel xoolaha ku badan yihiin yacni Ha. caanaha iyo ku badan dhul sas lo-da iyo dhaqaale waa xoolaha sax waa saxsan tahay ha wareeg saddexaad su'aalo guud. okay ereyga bax maxaad kale oo u taqaanaa macnaha sarbeeb ama haddii loo caadi ah isticmaalo ha macnaha ha bax qoftaas hadee tira yani waxay lamid tahay sarbeebaan joog joog ah ha bax waxaa may may tag oo kale may may waxaan ka wadaa macnaha ereyga bax in meeqa in inuu leeyahay ha meeqa micnuu leeyahay maa kodawse ha waxaa ula jeedaa in maxaad kale u taqaanaa. okay baxa yani erey kale u kasaya baxa waa la dhihi ha karaa tag waa la dhihi karaa ha okay adi wad hay waa la dhihi karaa bax tag waa la dhihi karaa sarbeeb ahaan haddii loo isticmaalo waxaa kaloo la dhihi karaa naga khalay camal ha noo gembi ha ga kasii camal ya hay shan adoo badan shan intaasaa la sheegi karaa
Haye, adi- doodkaaga xijiya doodkaaga haye, haye. ilaa lix Miya. En bax tag soco doodkaaga xiji ha, naga hor wareeg haye. صح انت Zie wat. Intaas het gaan. Oké. هذا جواب كانت. سيفيع. حقول قاموس وعربي ديكشنري وانجليز Soomaali ahaan maxaan dhihi lahay turjume qof meelaha lagu qorto turjumaha camal buug turjuma may horaan may hore macnee may erey bixiye erey bixiye yaa bixiye Daa'ud Xuseen oo kubadda cagta qaranka Soomaaliya u ciyaari jiray wiilkiisa magaciis in hadda wiilka Juventus baa iska leh Harun Daawud ja may Ayub Daawud ha Daawud, sax waad keentay xamar iyo hargeysa meeqa kilomitir ay isku jiraan xamar Camal. yardiisa ha 1500 hay adna sheeg ma aqaan waad u dhow lahay in 1600 kilomitir waad u dhow lahay aada ugu dhow waxaa la yidhaahdaa af soomaaliga waa tix iyo tiraab maxaa loola jeedaa yacni meel uu ku dhamaado ma la waa tiro badan yahay camal may tix iyo tiraab waxaa loola jeedaa saan u malaynayo murti iyo wax Madadaalo leh. madadaalo murti iyo murti iyo iska hadal ama murti iyo iska hadal ama murti iyo war murti iyo war okay sax klaar waa sax Wasaad. okay mooska intay qaadanaysa intay bislaato qiyaasta ugu dhow qiyaasta ugu dhow ilaa halii uu ku bislaado ha masku wuxuu ku bislaanaya ila tahay hal week adna 10 casho ada ugu dhow sababtoo waa 180 beri 180 beri oo canbahana amba hal bil meelaas adna ma aqaano laakiin wax sheeg Qiyaas. ada asaga wuxuu yidhi hal bil 130 maalin 130 mil ada ugu dhow waxaa weeyaan 6 sano 6 sano oo xoolo dhaqata ma eene waxyaabaha habluhu ku raacaan ragga maxay yihiin afar xabo la rabo inaad sheegtay waxay ragga ku raacaan ha okay habluhu waxay leeyihiin soo jiidasho yacni haddii aad aragto oo ka helid may waxaa weeyaan waxay habluhu ku raacaan ragga ku raacan ragga ha oo yacni ku jecel yihiin ragga Ha. habluhu ku raacan ragga okay ragga hadda waxay ku raacaan inuu lacag leeyahay Kow. inuu dabeecad leeyahay inuu qurux yahay saddex iyo inuu maseer badnayn kuma taalo taas kuma taalo ama jiibkii ugu darsaday qurux ha waxay sax ninkaa barana sax waxay ku raacaan inuu qurxan yahay wiilka inuu qurxan yahay inuu dabeecad leeyahay ha inuu lacag leeyahay ha saddexdaas waa la sheegay mid afraadna ku dar sax inuu nin caana yahay oo magac leh oo la hebel ay qabo kaleeto may sii wad iyo inuu dulqaad badan yahay dulqaad badan yahay maya okay adiga noo sheeg waa aqoon aqoon ama aftahnimo ama madaxnimo aftahnimo waxyaabaha dumarka lagaga farxiyo afar xabo sheeg okay anaa isku dayaya aa isku day kow inaa hadiyo u keento kow in aa yacni soo wareejiso dalxiis oo kale u wado kuma taalo inaa lacag siisa kuma taalo okay halka saa baa ka caabisa haye adna sax ma hayo waxaa weeye in la ammaano in loo keeno hadiyado si aad sheegtay Mm, in goorkaas loo muujiyo in la jecel la yahay jecel yahay
in markay hadlayso loo dhago nuglaado noo dhega nuglaada okay la maqan in la caawiyo markay howl hayso in laga ilaaliyo hadalla la qarafsan hadalada qalabsan ka soo horjeeda ها اللي هو موجود احترام بدن صح اللي هو قرابة صح ما غلط إن اللي هو سماه وحود يبسي si fiican ها إن وريكت أفراد ما هيو معنا وين شيكتان انت هذا الدولو هذا مدولو inta hadal duul hal maduul هذا مدولو هذا tusaale ahaan qofaa dhimato kale ama qofaa wax gaarin yani soomaaliya oo kale mise waddan kale joogtaa telefoona lagu gudbinaa yani hadalku ka hormara camal mana waxaa loola jeedaa hadal intuu gaaro shimbir duultaan ku gaarto صح صح shimbir way duulaysaa meel dhow laakiin hadalka uu si hadal intuu gaaro ma gaari karto shimbirta لابد يوضح صح سنتين ها ضل انا افكيس اقون دحتيس ماشي yani waddana hadda tusaale ahaan intaa jooga luqadaan ma aqaani ها ma ogaa kari ma wada heli kari yani sidaa rabo ma ka samaysan karo وصح وصح الدون أن لقى فقرين أقوم بجتا adduunna الدون أن لقى فقرين aqoon baa jirta أقوم بجتا ها adduun aan laga fikirin aqoon أن لقى فقرين laga faqrin aqoon baa فقرين jirta ها. okay صح waddanka oo waddanka aan laga farqin maxaa loola jeedaa mana haddii aqoon la wada leeyahay lama farqina macnaha fakri lama noqonayo ama waddan aan fakri ahayn macnaha aqoon ayuu dadka xukumaya aqoon leh dad aqoon laha xukuma barwana ساس ما ma barwana marka isku day isku daya اسكو ده ها waxay ila tahay tusaale ahaan hadda yurub oo kaleeta iyo afrika isku ma ahan yani dhaqaalo isuma ahan yani ma ahan isku nolol ma ahan marka adduunya laga faqrin ma dhihino nolol ma jirto أقوم بجتا aqoon baa jirta tusaale ahaan hadda yurub oo kaleeta waxaan dheeriyin waxyaabo badan waa naga aqoon badan yihin sida yani oo yani aqooniyin la dhahayo cunugu markuu 5 sano gaaro hore iskoolka aadaa waxbarasha loo bilaabo ilaa uu ka weynaado marka aqoon xagga saasa inayn dheeriyin oo kuheesa ودو داودين لكن معناه وحوين قف آدمي وحسو هانتي دقو ما wax la hubo inuu haysanayo inta noloshiisa ka hadhay inta noloshiisa ka hadhay bas aqoonta qofku barto waa mid la hubo inay ka soo doogayso dhibaatooyinka noloshiisa soo wajaha okay miro geed saaran gunti gu jira looma daadsho isku day miro geed saaran miro guntada ku jira looma daadsho tusaale ahaan qofa waxay tiri waxaa ku siinaa waxaa bayfabel tusaale ahaan ka soo qaadanaya qofa waxay tiri waxaa ku siinaa 200 ku siinaya tiri anigana waxaa haystaa 100 waxay ku dhahay marka labadan 100 isi waxay bila ku soo gadanaa 300 hadhuudu ku noqonayo kale marka hadii aniga lacagteyda haysto aniga ay anfacay haddii lacagtaas siiyo asigna tuugalayo lacagtiga wada qaatay marka wuxuu waa saxsantay ha kadiska way dhamaatay cali sidee dhibca baad keentay adna 9 dhibciyo baad keentay hambalyo waxaad tahay qofka badiyey hambalyo waad ku mahadsan tahay ka qaybgalnimadaada waa kaas adna hambalyo maadaamad badisay hadda waxaa u gudbinaynaa interviewga saare xuseen muuse okay maanta waxa idnala joogtaa saare xuseen muuse kusoo dhawo barnaamijka ila hadal mahadsanid waan dhowa maadaama mudan qofka qoray riwaayadda hooyo macaan ma adiga mise waa qof kale hooyo macaan riwaayadeeda waxaanu qoritaan ahaan waxaa qortay gabadh ka mida gabdhaha qora riwaayadaha oo ku sugan magaalada rotterdam taasoo ka shaqeysa tiyaatarka xaafadda rotterdam oo loo yaqaano netherlandka wike theater marka annaga sheekadayadii aanu u sheegnay ayay duubtay kabacdina waxay ka samaysay script wax la yihahdo ama qoraal okay waa si wanaagsan
dadka jilay riwaayadaasi wax ma inooga sheegi kartaa ها رواية horta markii hore haddaan wax yar taariikhdeeda kaaga sheekeeyo waxa weeyaan aniga iyo gabadh la yiraahdo Ruqiya Cadow ayaa waxaan muddo ku mashquulsanayn inaan maaragtay foorlikhtin siino dadka Soomaaliyeed muddo aad u dheer oo 10 sano laga joogo foorlikhtin waxa weeyaan wacyigelin iyo barnaamij ka bacdina waxaan sameynay waxaan rabnaa wax kale oo maaragtay ka duwan wacyigelintii oo haddana wacyigelina si maaragtay Soomaalida kaliya aan ahayn ay u gaadho oo dadka kale oo dhan Nederlandka dadka kale ama gudniinka ku mashquulsan ama caruurtooda guda ama maaragtay aan gudin si ay iyaguna u ogaadaan waxa uu yahay marka saasaan u dooranay riwaayadda hooyo macaan waxaan u tagnay marka qolo Rotterdam oo la yiraahdo platform Rotterdam Rijnmond ka bacdina waxaan sameynay aniga Ruqiyo halkaasaan balan kala sameeyay iyaga nagu xidhay marka qolada tiyaatarka ka bacdina waxay ku matalaan waxaan ku matalay aniga iyo Ruqiyo Cadow iyo gabadh Nimcaha Doon la yiraahdo iyo gabadh kale oo la yiraahdo Sucaad Cabaas صح أفرتينا بدها afarteedaas صح اوكي أفرتينا واجيليسين صح afna lan lagu sameeyay laakiin Soomaali ma lagu heli karaa Soomaali waa lagu heli karaa oo hadda ka hor waxaanu tagnay magaalada Bristol oonu ka dhignay wadanka cariga Ingiriiska waxaanu ku sameynay aniga iyo Ruqiya Soomaali baan ku sameynaynay labada habloodna Ingiriis bay ku sameynayeen okay markay Soomaalida Ingiriiska way yar fahmayaan Soomaaligana way fahmayaan marka qolada Ingiriiska ka soo qayb gashay waxa loo sameynayay turjumaad oo ah PowerPoint qolada kalena afkii labadaba way isla fahmayeen marka waa la hayaa iyadoo Soomaaliya oo qoran ha si fiican sheekada riwaayada inoo soo yarkoob sheekada riwaayad waxay ku saabsanayd noloshii Netherlands sidaan u soo galay waxay ku saabsanayd dhaqanka Soomaalida saano ahayn Soomaaliya markii aanu joognay waxyaalihii aanu soo marnay iskuuladii aanu dhigan jirnay wixii aanu sameyn jirnay waxay ku saabsan tahay oo kale Netherland markii la soo galay sidii Netherland noo qaabishay sidii aanu nir waxyaalahan la yaabnay waxyaalaha iyagu la yaabeen maadaama aynu markii waagi hore aqoon sanadihii 90kii waxa qaxootiga iyo maaragtay dadkan isu dhiibaya nabadgelyada weydiisanaya ka bacdina waxaanu la kulanay waxaanu ku jirto oo kale waxyaaladii adigu heesii Soomaaliya caadiga ah heesii Soomaaliya laga qaadi jiray iskuulada heeso kale oo lagu muujinayo waxyaalaha ciyaalka iskuulka dhigta sida hooyooyinku la kulmeen dhaqanka ay iskuuladu leeyihiin dhaqanka aanan garanayn la kulanay waxyaalahaasaan iyo intikhraadsiga iyo sida maaragtay wadan aadan waligii maaragtay ama dhaqankiisa ama normihiisa iyo vaardiisa ama waxyaalihiisa aadan fahmin aad soo gashay aad markaana saad ula dhaqmi lahayd macnaha dabiicadiisa iyo in la qabsashada dhaqanka sidaad ula qabsatid ayaad ka dhexeelaysaa riwaayadda YouTube waa laga daawan karaa soo maa markii ugu horreysay YouTube waxaa noo sameeyey waxyaalo xayeysiina ururka Netsom oo waa markaanu bilaabaynay waa laga heli karaa hooyo macaan YouTube halkaasay ku jirtaa laakiin waxaa kaloo laga heli karaa website-ka qoladan tiyaatarka oo maaragtay liyaado Rotterdam Wijk Theater.nl halkaan waxaad ka heli kartaa iyadoo aanu u sameynay barnaamijkaas qoladan NOS in yaroo ku saabsan iyagu maaragtay jarjareen in iyaguna halkaasna aad ka heli kartaa okay yo waa gartay riwaayadaas wax badan ma laga soo daayay TV-yada markaas waa laga soo daayay TV-ga NOS waxaa kaloo laga soo daayay NOS waa TV-ga Hollandiiska oo Netherland ayna waxaa kaloo laga soo daayay TV Rijnmond oo ah TV-ga mid gaar gobolka Rijnmond oo ah gaarka u ah waxaa laga soo daayay TV-yo kale oo qaatay oo sida RTL 4 oo kale marbaayana laga soo daayay in la sheegay maalinta gudniinka 6 February inay tunnel suuqa jiro yani inuu jiro tiyaatarkaas masriyaadaas waxaa kaloo jirta iyana meel kale iyaguna goosgoos soo qaatay oo barnaamijyo sidii maaragtay inay wacyigelin oo kale u isticmaalaan ay u qaatay baa iyaguna jira
waan gartay marka Holland dhexdeeda ayaa wax badan laga soo daaya haddaba meelo badanna waan tagnay oo maaha keliya soo dayn laakiin dee waxay ahayd barnaamijku in la wareego marka gobolada Netherland oo dhan inta badan waan tagnay sax marka meelo badan waa laga arkay adiga iyo jilyaasha kale waa si wanaagsan Sahra guurkii hore ee Soomaalida waxa inooga sheeg guurkii hore Soomaalida kulli anigu waqtigii Soomaaliya sida fiican say sheegayeen islaamuhu la isku guursan jiray waxaweyaan guurkii Soomaalida ee hore runtii wuxuu ahaa guur adigu dee wajiya badan waxaa jirtay in gabadha matalan iyadii oon ogeyn nin lagu daro oo subax dambe loo yimaado lagu yiraahdo hebel baa lagu daray hebel baa guursanaysaa waxaa jirta wiil iyo gabadh meelaha ciyaaraha isku soo arka sida maanta hidiya dhaqanka meelaha ciyaaraha lagu hidiya dhaqanka lagu ciyaaro isku soo arka oo wiilku soo doono gabadhii waxaa jirta gabdho lala baxsado oo inta lays yiraahdo dee ama gabadhaas ama firfircooni ama karti ama reer fiican ay ka dhalatay lagu ogyahay lays yiraahdo haddii aad doonataan waa laydii diidaya inay gabadhii maaragtay ka haystaan oo ay soo guursadaan kabacdina dee ay sidaa loogu meheriyo gabadhii guurku runtii waana fara badnaa waxaa jirtay waxyaabo badan oo markaad isweydiinaysaa leedahay waxaas maba dhici karaan laakiin waqtiga xaadirka loogu nasteexaynaya reerka iyo gabadha Soomaaliyana anigu Soomaaliya ka hadlaya Soomaaliya waxyaabo badan ayay ku kala duwanaayeen Soomaaliya waa wadan weyn marka laga eego cirifka sare ilaa cirifka hoose waa kala dhaqan isku si loo isuma guursado haddii Ilaahay ku roon yahay lama sameeyo xafladaha xataa isku si looma sameeyo aniga kulay inta aan ogahay intii aan yaraantii kusoo barbaaray gurigeyga iyo intii aan dad ka maqlayay iyo intii aan arkay waayo arag intii aan ku hayntaan da'daydahay waxyaabo kala duwan baan arkay meesha aan ka imi kulay ama dee aan kusoo barbaaray waxaa la yiraahdaa gabdhaha waxaa laga qaadan jiray 100 halaad iyo qori iyo bunduq si maaragtay kabacdina dee gabadhaas ayaa la bixin jiray oo maaragtay dad badan isku dhaafsan jireen meesha geedkaas hoostiisa oo si sharaf leh oo dee adigu sir xaflad gabadha loogu bixin jiray oo laga qaadan jiray waa jirtaa dee gobolada kalena inay si kale loo bixin jiray laakiin anigu ma garanayo runtii intaan garanayo baan ka jawaabay sax waay laakiin haddii laho gabar aamus lagu meherinayaa maxaa waay markaas macnaheedu waxa weeyaan matalan waxaa jirta way dhacdaa in gabadh laga soo doono reer matalan markii laga soo doono gabadhii reerkii waxay sameynayaan ma joogaan reerkii ama wayba fadhiyaanba gabadhii baa loo imanaya waxa leeyahay ninka hebel baa ku soo doonay ma rabtaa okay gabadhii way xishoonaysaa inkastoo dee wax laga xishoodahayn ama hadday rabtana maya odhan karto laakiin ma jirin waxyaalo badan oo waxaa jirta gabdhuhu ka xishoon jireen sida dhaqanka ay meeshaasi ay tahay kabacdina gabadhii way aamusaysaa iyadoo markaa madaxa hoosu dugayso markaas waxay leedahay waa lagu celinayaa gabadhay wiilkaasaa ku soo doonay ma samayna ma ogoshahay haddana way aamusaysaa marka halkaasay mahmaahdu ka timi gabadh aamuskaa lagu meheriyaa sax okay guurka hadda inoo sheeg isu yahay haddaba wallaahi guurka hadda waa macno badan yahay sanadba sanadkii ka dambeeyana wuu sii macno badnaanaya waxaa guurka hadda dee waxaad arkaysaa wiil iyo gabadh isguursaday waxaad arkaysaa nin waxaad arkaysaa caruura leh oo haddana caruuro naa kala guursanaya inkastoo Soomaaliyaba jirtay laakiin haddana Soomaaliya macno badan bay lahayd matalan haddii walaalkaa ka dhintoo kale inaad dumaasho haddii aad dee adigu guur doonto inaad guursato reerkii mas-uul ka tahay halkan waxaad arkaysaa dee nin dhan oo mas-uul ahoo maaragtay mas-uuliyadiisi hadduu doono iska daayo haddana mas-uul kala qaadaya waxaad arkaysaa qof dumar ahoo gurigii iyo reerkii ka mas-uulahayd hadday doonto ka dhaqaaqaysa ma fahantay ma gartay marka guurka hadda wuu macno
waxaad arkaysaa wiil iyo gabar yaroo dhallinyaraa haddii doonaa 2 bilood isqaba marka dee guurkii si kaluu noqday hadda waan gartay in gowgaalaysiga maxaad ka taqaanaa gowgaalaysiga wallahi xoogaa baan ka aqaana gowgaalaysiga islaanta hooyaday ka bartay haye matalan waxaan garanayaa oo kale wax dhexda ka rima oo afka ka dhala xabadda hudso waad garatay waxaa jirta wax la yiraahdo ban wari ah riyo boqol ah naag bahala iyo ban wagafa ma garanaysid runtii anigu qudhaydu si fiican umaan waxay ban walaadhi ah iyo doobi bagafa iyo riyo boqol ah iyo naag bahala waxa weeyaan ban wagaafiya waxa wax weyn waa cirka doobi bagaafiya waxa weeyaan waa dayixii riyo boqola waa xidigihii naag bahalana waa qoraxdii sax waxaan kaloo garanayaa ilaa iyo carro ogaadeen kole carro ogaadeen way aad bay u fogeyd moogtahay soomaali ilaa carro ogaadeen kurtin naasaha gabdhaha ah si fiican baad yeeshay waxaa jirtoo kale wax bir lagu lingaxay loohay oo bilbilaali lagu lingaxay bal carab bujiyoo biyo iga sii waxa weeyaan gabadha uur kale ilaa dee ilaahay ka keeno adigu dee intaad farta ku mudmuddo ma dhalaysa moogtahay ama waa in la jeexo ama waa inay caadi u dhasho marka dadkii hore waxyaabo badan bay waxaan kaloo garanayaa waxaad sheegtaa maantoo dhan baan arigaygii lasoo joog waxaan u imi markaan guriga soo galay aabbaha iyo hooyada cunahays haysta waxa weeyaan dhidibka iyo udubka iyo dhidibka is haysta guriga u dhexeeya labo sac saantooda isleegna labo sac saantooda isleeg laba sac oo saantooda isleeg tahay ma garanayo dhulkii cirka wallahi waad ku keenkeentay maanta haye iyo maxaa la yidhahdaa kii kale cudurkii ku doorsho aan ku dilin daw aan lahayn sheeg cudurkii ku doorsho aan dilin aan dawna lahayn horta anigu jacaylkaan odhan lahaa laakiin waa doqonnimada okay waxyaabo badan baad garanaysaa adigu ku dhaadiye waad ku mahadsan tahay waraysigaaga adigaa mudan barnaamijkeena intaas ayuu ku dhammaaday barnaamijkan waxaa inoo sahlay netsom iyo horseed media waad ku mahadsantihiin dawaashadiina waa inoo mar kale